nin siyaasadda ku jiray in muddo heerar kala duwan ka soo gaaray haddana يعني firfircoonida saddexdii sano ee barkii la soo dhaafay aniga asagoo isku dhufays baan ku jirnay waa is soo qaybinay laakiin waxa muhiim noqotay in deegaankii laga soo jeedayna hadduu fool xun yahay hogaamiyihiisuna waa fool xumaanaya anigu deegaankiina soo diyaar deegaankiina ku soo noqono la nadiifiyo meel dadka hogaamiyaasha ama tartanka ku jiraahi ay u nasab sheegan karaan ku faani karaan aan la dhahayn deegaankiina waa kala qaybsan yahay qabiil baa la isku dirirayaa maamul xumaa ka jirta waa la kala fadhiyaa intaasaan ku dadaalaynay marka hadda waxay noqotay garoon lagu soo dego oo siyaasiyiinta adigoo kala u diyaar garoobayay waxaan rajaynaynaa sanadkan kursiga waa ilaa xad waa hubna in galmudug ay qaadanayso waxaan rajaynaynaa ninkan cabdiraxmaan aan runtii waa soo sabray dhowr jeer tartan waa ka qayb galay markaan in la tijaabshaan aaminsanaanu markaan kursiga lagu fariisiyo dadka reer galmudugna garbaha u noqdaan asaguna nin hogaamiya inuu yahay ha ogaado galmudug waxaan rabnaa gar iyo gardarraba inuu taageero xaqa inuu ku taageero wanaagga inuu ku taageero marka ay naga jiifto iyo markay noo joogtaba labadaba taageeraan uga baahan waxaan leeyahay runtii waa dalka Soomaaliyana wuxuu u baahan yahay dimuqraadiyadda aan intaas ku dadaalaynay aan intaas lahayn war dalkan dal dimuqraadi ha noqdo dal xisbiyada badan qaatay ha noqdo dad afkaarta kala duwanaanshaha afkaarta la isku ixtiraamo ha noqdo waxay ahayd meesha hadda la joogo haddaan loo mitidi lahayn haddaan lagu mitidi lahayn haddaan sutida loo qaban lahayn saddexdii sano ee barkii la soo dhaafay runtii meesha maanta aan hadlayno iyo codka aan sheegayno sida shabaabka kala murtadiin la isku qori lahaa laakiin mitid iyo waxa loo galay shaqo adag baa loo galay shaqadaas waxa weeye ninkan waa loo dhaawacay waa loo dilay waa loo xayiray waa la rafaadiyay dib oo dhan waa loo geystay ninkii Kamaal ahaa dhowr jeer marka magaalada lagu xiray waa noo yimid asaga daftarkiisa halka ma isla joognaa hadda wixii Kamaal iyo Said Ali annaga nagu dhici jiro dhan hadda korkiisa ku dhacan waa nin dulqaad badan dhawarkiisa wax badan buu xambaari karaa Soomaaliya inuu xambaari karana misanahay waxa ku rajaynayaa guul baan ku rajaynayaa Cabdiraxmaan soo dhaw waa maasanta